إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم waxaan ku soo dhex jiray kitaabkii sifatu salaati nabi sallallahu alayhi wasallam sifadii salaada nabiga sallallahu alayhi wasallam darsiga labaad wuxuu ku saabsan sabab ta'alif alkitab sababta kitaabkan loo alifay wuxuu ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع وعهد الله يا إمام الباني رحمه الله ولما كنت مركان هابي لم أقف ميدان اسكرتاجن على كتاب جامع كتاب سكانية في هذا الموضوع موضوع عن السجعة ومذاهبت أو لن أنتوا اسكدايو أحاديث النبي كلية أوروناية صلاة النبي سيدا وأكيد مذهب كان وحبه خلافي كان كلا حبه خلافي كان كلا حبه خلافي هذا وذا مركز مذهب والبمال بو ku khilaafsan yahay in badan oo kamid ah xataa madhabkan aan ku jirin baa kan kale xadiiska madhabka kale waafaqaya waxbaynu arki doonaa waxaan sheegin markii hore markaan kitaabka soo bilaabaynay laba muqaddamo kitaabku sameeyay laba dabacadood ba hadda meesha noogu qoran kitaabka jildigiisa noogu qoran laba dabacada hore wuxuu ku sheegayaa inay tahay dabacada tobnaad inay tahay oo wax badan ku soo dardaray dabacada toddobaad buu hadana gadaalka keenaya oo ku xig warqadaha ku xig ku qoraya dabacada toddobaad wuxuu kaga hadlayaa rag soo weeraray markuu kitaabkan qoray la yiraahdo Xamuud ibn Abdullah at-Tuwajri oo Hanbali ah oo reer Najdiya ninkaas wuxuu ka qoray 13 mas'alo oo sheekha ku weeraray uu leeyahay wuxuu ku khilaafay marka madhabkiisa wixii ka soo horjeeday way markaas wuxuu leeyahay afar kamid ah isaga aan ku raacay si fiican buu u qurxinaya saddexna kitaabka waa ku jirta waa been abuur amal inta kalena uu ku khaldan yahay buu leeyahay sheekha isaga laftiisa ka daba qaatay oo wuxuu ka qoray naqdi badan ka sameeyay meeshaan xoogaa kaga hadlay laakiin meel kale aan ku naqdiyay buu leeyahay maadaama dadka madaahibtu ay ku fogaadeen muqalladiinta ahi casharka dambeeyana kaga hadli doona fuqahada dadka muqalladiinta ah iyagu inay madhabka ay qalataan mooyaan ana xadiis sida ugu dheeraynin maadaama markay arkaan kitaabkan ka hadlaya xadiista oo xadiis wada saxiix tahay oo sheegaya qaabka loo tukanayo sidoo ay yaqaanina wax ka bedelaadaan oo ra'yiga fuqahada iyo xadiisku iska hor yimaadaan ragii markay madhabka ku dhaganaa oo muqalladiinta ah ma ragii xadiiska u dabacsan waxay imaanaysaa inay sheekhi markaa weeraraan wax ka sheegaan taasa marka aynu arki doona isaga sheegi doona kitaabka markaa sii dhaxgalo uu leeyahay waxdana ka gali maayo dad badan baa sidoo kale la dacaniyay markiin maadaama salaadii nabiga wax sida u ekayd أنا حديث السوء الرياض أو ساس ورنايا ولما كنت لما أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع مركي أنا هابي كتابك سانو كلا ماركت موضوع عنه كلا كتاب أورورنا سانو كلا ميل سقوط كياني فقد رأيت وحرك من الواجب علي إن واجب قلت هاي أنا ضع إن أدتشيه لإخوان المسلمين ولا لها مسلمين تاع ممن إن أدتشيه يهمهم ومرجع جليني أهم جليني مرجع هذين وهم جليني الاقتداء إنه كده في عبادتهم عبادة حجيرة بهذه النبي صلى الله عليه وسلم نبي هذه جسي كتاب إن أودت شيء كتابكم مستوعبا أورورنا إياه ومال سوق يعني استيعابك وحوي هذا محن سومالي كل شيء كلمة استيعاب كتاب باشر الاستيعاب من الصحابة كتابك ابن عبد البري وكتابك السيرة وحبح كتابك الصحابة وكذا الله استيعاب meel baliyo godan hadee biyo hareeraha kaga da'aan oo biyo dhan baliga isugu soo afarta kore ka yimaadaan meel isugu soo ururaan saas weey waxa xisaas kale meel isugu wada yimaada baa loo isticmaalay isticaabku waay kitaaban mustawciba kitaab ururinaya meel isugu keenaya ma amkana waxa intay suurtagal tahay li jamiici dhamaan ma yatacalaqu bi sifati salaati nabi sallallahu alayhi wasallam waxyaabaha ku tacalluqa sifadii nabi salaada nabiga ku tacalluqo dhan meel isugu keenaya min at-takbir ila at-taslim laga bilaabo markii Allahu akbar salaada la galo iyo marka la salaamo naqsan inta u dhaxaysa salaadu waa cilmi fara badan bay leedahay laakiin hadda kitaabkan wuxuu ka hadlayaa markuu qofku salaada intuu istaago qiblada u jeedsado Allahu akbar yiraahdo assalaamu alaykum marka ka baxay inta kaliya laga hadlayaa wixii salaada ka baxsan oo dhan oo cilmigeedii laga hadlay inta kaliya laga hadli doonaa wali muqaddamadan ku jira qaabkii muqaddamadan ku jira بحيث يسهل ميل أي سهليسه على ما وقف عليه قفك اسكرتاغا من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم ددك النبي جعل حبا صادقا جعلان رونه دبا اما حبا صادقا جعلان رونه القيامه انه اسوتاغا بتحقيق امركيس انه كدبيه في الحديث المتقدم حديث كاس انه كدبيه حديث كاس انه سو مري صلوا كما رايتموني اصلي
صلوا تكذا كما سلم إذا رأيتموني أرسال أركيسن أصلي أنا بتكناي كاف وحرف التشبيه صلاة النبي أيا وحي مشبه به يا قفك التكناي وإنه مشبه اسكو شبهها أداة التشبيه وكافك وجه الشبه هنا وحوي صلاة السوء كان شهير وي مشبه هي مشبه به يا أداة التشبيه وجه الشبه وجه الشبه وإن لبا صلاة السوء كان وي ماشي سجئهم ميل والبو النبي قوس قابك السمين السميسي وايا صلوا كما رأيتم من أصلي ولهذا وحي الشيخ الباني ولهذا رحمه الله ولهذا فإني شمرت وحان افتفحيتي تشميرك ومرض كر له حيتوي من ساعد الجد ها وحلي هي او صحو كان ادوبي وي صحو دوب وفهمتي سوما ساعدك waxa la yidhudunka inta dhudunka jadina waa dadaal ana Soomaali صحو دوب bayna waxaan u tafaxayta u صحو doobtay way وتتبعت الاحاديث المتعلقه احاديث كنت تعلقدان راعي بما اليه قصته waxaan u qastay من مختلف كتب الحديث كتبت حديث kala duwan ayaan ka soo urushay salaadii sifadii salaada nabiga فكان من ذلك وحا ahaaday هذا الكتاب كان الذي بين يديك كتاب كان hortaada yaal baa ka sugnaaday wixii aan dhex galay oo raadiyo kutubta kala duwan meel hore wuxuu ku sheegayaa madbacada 700 150 iyo siyaado kitaab ayaa ka soo urushay bulay 150 iyo siyaado marjic ayaa ka soo qaaday bulay kitaabka yar ka arkiis way intuu laba kitaab saddex kitaab soo qaatay kama qorin meel badan ka soo qaaday way فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك وقد اشترطت وحن أشردي على نفطي إذا وحن أشردي أن لا أورد إن أنا كس أرور فيه كتاب كان من الحديث النبوي حديث النبي إلا ما ثبت سنده وحي سند كيس سجن هذه محكي لنا كس أرور حديث سند كيس سجن مي مويانه حديث كان أنا كس أرور حسب ما تقتضيه قواعد الحديث الشريف وأصوله حسب ما تقتضيه سيده هد بكينيسه قواعد الحديث الشريف قواعد أما تيرك كتاب حديث كشرفت له وأصوله أصول الحديث وضربت صفحا وحنا على توري عن كل ما تفرد به مجهول وحكست أقول لك قارن وضي قفا لا أقوني مجهولة إنه عدالة لها إنه ضبط لها قفا لا أقونين وهي حديث أقول لك قارن وضي قف مجهول عن الأقونين حق لنا عارض توري أو ضعيف قف ضعيف حديث كلها ما نسكت توري سواء كان ذلك في الهيئات أو الأذكار حتى هذا واحد اسكو ميدا إني أهادان في الهيئات صلاة وحيالها لقو قرحيه أو الأذكار أذكارت الآخرين أو الفضائل وغيرها وحيالها صلاة فضل لقو الشيقي لأنني أنا أعتقد وحن اعتقاد سنة أن فيما ثبت من الحديث وحي النبي كسقنا علي غنية وحي لقى كافتوني عن الضعيف منه يا كضعيف كضعيف وحي لقى كافتوني وحي النبي كسقنا علي ما بالله بهنا ضعيف الحال وفليا ضعيف هي موضوعي وحن لا أقول يقف جهالائي ما بالله بهنا أنت النبي كسقنا صحيحة بعد قبضا بولي لأنه لا يفيد معايا بلا خلاف الآن وحبا فائدين ما حديث ضعيف كهي إلا الظن ملم ويانه ملهنا والظن المرجوح ملهنا سيديسة وحل قرش حين وي وهو كما قال تعالى سيد الله يري سبحانه وتعالى ولا يغني من الحق شيء إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الظن مله لا يغني وحبا كمتر من الحق شيئا حق وحبا كمتره ملا وحبا لكم نسته قتل الخراصون الذين في قبرة ساهون وراك أدهاي وقال صلى الله عليه وسلم وحيري إياكم والظن إذن كي يوحد إذن كالدقى يا ملها فإن الظن أكذب الحديث مله هو بين متك وقب بين نمت بدنوي أكذب الحديث وي ورلا وشي كي متك وقب بين بدنوي مله داد مله وحكولش دين ترى مله لقو مدسي كروه واحد إلهي اللي هو تقيش مله لقو مدسي كروه وأري خطر بدنوي فلم يتعبدنا الله تعالى إلهي كره هاي نقو ما أدونسا بالعمل به حديث ملأه وضعيف إنا كو عمل فالله بل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي عنه حديث كان الله بين فقال وحي النبي حديث كان ضعيف دونا واغ هore صحيح buu haystay hoos buu ka sheegi doonaa waada mukadaba tagay wuxuu arkay meel kale ku arkay soo daciif haduu baarana daciif uu noqday ittaqu xadiiska ku qoray kitaabkii ittaqu alhadith xadiiska iska ilaaliya anni aniga inaad iga warisaan ittaqu alhadith anni xadiiska inaad iga warisaan iska ilaaliya hadalka nabiga dhahayaa la oranaya illa ma calimtu waxaad ogtihiin mooyaane inaan anigu iga sugnaaday ama ficil ama qowl ama taqriir inuu iga sugnaaday xadiiska marka uu qabsaday wuxuu yiri صحيح وأخرجه الترمذي وأحمد بن أبي شيبة ومن أبي شيبة صدق هذا الشيخ باصوص صاري وعزاه الشيخ محمد سعيد الحلبي في مسلسلاته للبخاري شيخ عندما يسوي حير البخاري ووري فوهم واسمه سيوي البخاري كتاب حديث كان موري به من الباني بعد الله ثم تبين لي وحي عضاتي أن الحديث ضعيف حديث كان متن أكو إنه ضعيف يحي
واي وكنت اتبعت المناوي في تصحيح الاسناد لاسناد ابن ابي شيبه فيه waxaan ku raacay manaawi sheekh manaawi baan ku raacay saxiix yeelay ibn abi shayba kitaabkiisa uu ku saxiix yeelay kaasaan ku raacay sima tayassara li alwuquf alayhi waxa ilaahay agtiis waxa la ii sahlay inaan iskor taago fayda huwa bayin dhaif masaba bayin dhaf masaba hadith dhaif وضعيف نوس عدها هو نفس اسناد الترمذي وغيره الترمذي غير كرجه كلو وريو دن اسغو سندكيسا baan helay حديثك رجه ku jiro baaray masaba dhaif حديثku oo baaray waayahay ساسو marka yiri wuxuuna ku daray silsilatu alhadith dha'ifa waqad yaqumu maqamuhu waxaas isaga bedelkiisa galaya oo saxiixa oo la huba oo la macna man hadatha anni bi hadith yara annahu kadhib fa huwa ahad al-kadhibin hadithka muslim ma soo saaray iyo geyrkii hadithka wuxuu leeyahay man hadatha qofki ku sheekay anna aniga iga sheekaya qofki aniga iga wariya bi hadith yara uu arkay annahu kadhib uu been yahay fa huwa ahad al-kadhibin inta beenta sheegtay mid kamida way waa been low qofkaas ahad al-kadhibin way qof nabi maxamed markay nabiga xadiis wuxuu ku been aniga laga sheegay lamid ma beenaha dad kale laga sheego beentii nabiga laga sheegay diin bay noqonaysaa qof kale hadaa been ka sheegtid hada jariimad ku dhacday kabaa'ir baad ku dhacday laakiin nabiga hadaa ka sheegtay ogow man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar qofka igu been abuurta barta uu joogo naarta uga diyaar garoobo uga diyaar garoobo ama maq'adahu min an-nar meeshuu naarta ka fariisan lahaa yaa u diyaar garoobo تضباط الصحابة أكثر من 70 صحابيا باوري حديث كان من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار تضباط الصحابة كبدا باوري واي هذا وقد كنت وحن هابو يري اتقوا حديث عني إلا الماضي فإذا نهى عن رواية الضعيف فإذا نهى حضور ريبة عن رواية الضعيف فبالأحرى وحا كهب هدي النبي وريبي بليهي قف حديث ضعيف إن لجوريه فبالحرا وحى كسي حجته كسي هبون أن ينهى عن العمل به إن لو عمل فلان إنه نهيه حديث ضعيف كأيان اللي يجورين يا لو عمل فلان بكسي حجته وي لا ضعيف ورنتي هذا الأفكار اللي جش يجوي لكن لو عمل فلان كسي فوق دولي هذا وقد كنت وحنا هابير وضعت الكتاب على شطرين ليش أقول شيء قاب الكتاب كأسمي الصعدة كتابكم على رقي يود دولي أيمنا وأنت خرب متن جاه أو مركي هور الضابعي qaybna waa qaybta hoos oo sharax xadiis cidi warisi iyo meel uu qabanayo ka hadlayo iyo meel madaahibta waxyaabo kaga hadli doona qaybta hoose waa laba qaybood laba cashar kala socda way wuuna isku aadiyay mid walba midka kuwaas waa ku isku aadiyay waa manajim way musajjim way isku xiran yihiin hada waqad kuntu waxaan habi wadactu alkitab ala shadrin laba qaybood baan ka dhigay laba ay nisfayn a'la wa adna qayb kore iyo qayb hoose qaybta matniga kor baa lagu qorayaa qaybta adnaaga hoosana waa qaybta ama hadii kale rasmiga waa midda sare asalka ah ama la awal midda hore calaaga ah فهو كلمتني مثل بقول لك انت اريد فيه waxaan ku saaroday mutun al-hadith mutunteedi ciwaan wuxuu 10 kale wuxuu ka dhigay ahadiis magacyada kelmada uu meesha ku qorayo aw bil jumla laazimah minha ama jumlooyin hadiiska laazima ayaa ku qorayay bulay wadactuha waxaan dhigay fi amaakinha boosaskeeda Allah ay qad u cunabay biha iyada muallifan ana isku saadinaya bayna bacdaha qaarkeed dhexdeeda ana isu keenay dhexdeeda ama taaliifku in la isu keeno isku aadiyo بحيث يبدو الكتاب منسجما يدو كتابك قنيه كتاب اسكو هاغاكسن يعني كلا يا سنين من اوله الى اخره ماشي اوهرس الا ماشي ودميس جملوين كاس وحرصت waxaan ku dadaalay على المحافظه ان الالاليه على نفس الحديث حديث كنسكيس ان الالاليه واللفظ الذي ورد في كتب السنه يلفظ كسر كتب احاديث نحن عليه وقد يكون له حديث كاين اسناتا laga yaba alfaad kala duwan فاوثر منها كسو دورته لفظا لفظ gaar ka soo daray alfaadi kala ka soo tagaya li faa'iidati ta'lif faa'iido khusaysa alifaada waxa alifayo ayay meesha munaasab ku tahay oo qeyri ama faa'iido kale dheeraad ka abay wadataa lafdi dhowr alfiyo baa lagu wari dhowr riwaayo kala duwan waan hal xadiis saxaabi markaas mid ka soo xulanaya way waqad aduma ina ku soo lamaaniya la arka ilayhi marti lafdigaas xadiiska ka soo qaatay غير متكله ومن الالفاظ كم حديث الفاظيسي فانبه عن براروجيه على ذلك حديث روايه دم اما لفظي دم بقول هذا الكيو قورتان انت هور ان لفظي ان دنينيا markaan qoro ayaa lafdi kale uga maarmi waayay markaasan isla xadiiski ah sawiranayo fi lafdi kale xadiiskan ilaha waxa kamid kada wakada kaay kaasu aha oo ama si fi riwaayad kale kada wakada taay saas kale ahayd way wala maczuha qaybta hore oo matniga ah ولا معزوها أمطيرين
ilaa ruwaatihaa dadkii axaadiistaa wariyey oo min asaxaabati saxaabada ka mid ah ilaa naadira mar dhifa mooyaane maba sheegaya saxaabiga warinaya qaybta hoose ku sheegi doona marka dambe qaybta hore saxaabadii maba taaban buu leeyahy walaa bayantu mana aana caddayn man rawaaha qofkii wariyey oo min aimati alxadiid axaadiista ka mid a aimadeeda tashiilan anoo dadka u sahlaaya lilmudaaracati walmuraajaca mudaaracada xadiiska la daalacanayo iyo muraajacada xadiiska la muraajacaynayo anigoo sahlaya ayaan ka tegey dadkii warinayay saxaabad ma aan taaban buu leeyahy intaas waxay waa shadriga hore qaybta hore oo matniga ahayd wey qaybtan xoogaa ka hooseysa hoosta kusii qoran buu ka hadlaya waa ama shadrul aakhar qaybta kaleoo sharxa oo kale hoos ku qoran oo xadiiska sanadkiisa iyo saxaabada ku sheegay dadka badanaa saxaabada maba u sheegayaba inta badan ee wuxuu sheegayaa ruwaada keliya fahuwa ka sharxi bay u dhiganta limaa qablahu qaybta hore matniga ah inay sharaxayso kharajtu fiihi waxaan ku takhriijiyey تخريج waa تصحيحin iyo inuu xadiiska صحيح ka dhigo ama ka dhigo ضعيف wixii la mid ah الأحاديث الواردة في الشطر الأعلى qaybta hore أحاديثta ku soo aroortay qaybta hore أحاديث ku soo aroortay ayaan ku takhriijiyey maxaa صحيح maxaa صحيحayn mustaqsiyan anoo ku xeel dheeraanaya alfaadahu wa duruqahu xadiiska alfaada ereyadiisa iyo duruqda ku yimi maca alkalaami anoo ka hadlaya calaa asaaniidiha أحاديث kor ku qoran asaaniidda qaybta kore ku qoran asaaniiddeeda sanadyadeedii سند ما قرنيشان سند متن ولا يقان سند حدثنا فلان عن فلان عن فلان مركي ليه حدثنا فلان سند سلسلة الرقاوي وإلى النبي قال وسمي وشواهدها يو حيابها شواهدها حديث كلو حوتشنا أو مركان تكعي تعديلا وتجريحا أنا حديث هو صحيح تعديلك واحد بين حديثك رقا ورنا تعديل سد أما حديثك لفتي ساتر هذا وصح وتجريحا باوعد حديث وحلقة الشيء وتصحيح حديث كلا صحيح ولا تضعيف إلا ضعيفيه حسب ما تقتضيه علوم الحديث الشريف حديث شرفت له علوم تسري كينيسو وقواعده هي قواعد وحي كينيسو وقواعده ده علوم وحي كحرنت علوم حسب ما تقتضيه علوم الحديث الشريف وقواعده سيدا كينيسو هضبا علوم حديث شرفت له هي قواعد وكثيرا ما يوجد وكثيرا وحبلا ما يوجد انت الهلي في بعض طرق من الالفاظ طرق ama jidadka alfaada xadiiska والزيادات iyo waxyaabaha ziyaadaadka ma la yujad waxaan laga helay fi duruq ukhra duruqda kale taasoo kale waxa dhacaysay nabiga sallallahu alayhi wasallam tusaale ahaan xadiis baa soo qaadanaya marka ziyaadooyin buu arkaya meel kale ku yaala oo faa'iido leh u leeyahay وكثيرا ما يوجد في بعض طرق duruqda qaarkeed ama jidadka xadiis ku soo aroray min al-alfaad ereyada ah وزيادات in badan oo kamid waxa laga helaya duruqda iyo alfaada ku soo aroray xadiiska وزيادات waxyaabo dheeraada ma la yujadu fi duruq ukhra duruqda kale waxa aan laga helay فأضيفها waxaan ku lamaaninaya ila الحديث الوارد في القسم الأعلى xadiiska ku soo aroray qaybta kore إذا أمكن هذه suuragal tahay insijaamuha in lagu lamaaniyo lagu isku hagaajiyo macaasida asalkiisa lagu hagaajiyo وأشرت وأن إشارة إلى ذلك أرنكا بجعلها إنا كيلا بين قوسين لبا قاس دحدود حاليا هذا قوسك مستطيل كأه مثل ساسو كلا كان كلو ساسو كلا قوسك دور قوس باجرا قوسين waxa wixii laba angal galiyo oo baadirsi dhan oo la barto calaamaadka kitaaba dhan oo la barto way calaamaadka kitaaba manhajul bahthigana aad u anfaca qofka wax diyaarinaya ama kutub alifaya ama wax sameynaya marka leeyahay waashirtu ila dalika bijacliha inaan ka yeelo bayna qowsayn laba qows dhexdood mustadiilayn dhaadheer haakada saan oo kale calaamad meesha ku dhigay duuna an cadaynayn calaamada farada biha qofkii la gaarooday min al-mukhrijin raga xadiiska saxiixadiisa iyo ka hadlay asalkiisa dadka soo saaray aan gaar u sheegay hada ida kana masdar xadiisi هذا وركاس وحو إيمانيا إذا كان مصدر الحديث حديث كمصدر كيسو مركو يهي ماشا وكسو بحي ومخرجه يعيد الصوص عن صحابي واحد مخرج كيسو هي مصدر كيسو أسلمير هذا إذا كان مصدر الحديث حديث ماشا كسو فولي ومخرجه ماشا كسو بحي عن صحابي واحد هل صحابي هذا يتهوي لكن هذا لبس صحابي كالوريا وكال الشيغيا مثل بقار كيسو واحد لاي قارب يسو تاتشينيا وإلا جعلت هذا لبا حد صحابي كالوريا أنا ما صدح صحابي وسهل صحابي هين وإلا جعلت وحن كيليا نوعا آخر نوع كله مستقلة بنفسي نفتيس ومدح بنان حي صحابي اسكو مد maaha إمام مسلم markuu xadiiskiisa wari kitaabkiisa saxiixa xadiiska hal saxaabi haduu warinayo riwaayaadku soo celcelin intaasoo riwaayad la xadiiska saxaabigu hal meel isu wada keenaya asoo kale meesh ku soo celcelinaya saxaabi kale xadiiska markuu bilaabo meel kale hadana taasoo kale marka hal saxaabi
إمام أحمد بن حنبل سجن مسند كيسا وعركتي أبو بكر بو كبلا عمر وكحجنا عثمان علي 10 المبشرين ضد الحمى تسجال كل أسبوع حجنايا أبو هريرة مجلة يبر بوليه لا مجل لو كل جس ليه كتاب كنت يلا بدل مجلة مسند أحمد بن حنبل هذا آخرنا واسكب يمعاوي بيحريروي فضود هذا آخر سنة هذا فضود كتابك علم بدنا كبوحه marka saxaabi kasta meel isugu kana xadiisiisa musnad baa la yiraahdaa taas oo kale kan marka muxuu sameeyay markuu xadiiska googosanayo hadii xadiiska hal asal hal saxaabi leeyahay uu isu geenkeenaya ereyadiisi meel buu qowsayn buu u furaya markuu xasaa sameeyo has ahaatay hadii laba saxaabi kale noqdaan xadiiska kale oo saxaabiga kale mustaqil buu ka dhigay meel gaar u geenay kama taraahu si aad ku arki doontii fi ad'iyat al-istiftah ducooyinka istiftaha salaada marka la furfuranayo وجهت وجهي للذي سمعنا صلاة مركز الفرفورني وغيره ما لك وهذا شيء عزيز أريتاس وأهرين أن بدنا الهيلي كريوي عزيز واحد نادر وي عيد والبئس كما هيلي كرتوي ذهب كقاضوي ذهب كقاضو وهذا شيء عزيز تاس وشيء غالية أم عزيز نفيس قيمة بدن لا تكاد تجد هذا هكذا في كتاب لا تكاد ودوان ميسي تجده إلى أريتانو كالهشيد هكذا يضو ساسو كلا في كتاب كتبت الله نصنف في متكم إذا كلنا كهشيد والحمد لله إلهي ما كن مهاتن الذي بنعمة تتم الصالحات الله نعمة سوء وحيابها تتم الصالحات وحيابها صالحات كل ما يستر موناجيده إلهي كن مهادين يا إلهي سأوا في شيء كتاب كانوا سوء عادي ثم أذكر فيه وحن شيء مذاهب العلماء المذاهب تدي من كهاد الدونا ثم أذكر وحن شيء دونا في كتاب كان مذاهب العلماء علماء المذاهب تودي حول الحديث كهريريسة حديث كلفتيسة الذي خرجناه حديث كاسو أنسو تخريجني حديث كان قيبته هو سكال الدوان ماشا كهالله حديث كان تخريجني مذاهب العلماء وحي كيرا هذين ودليل كل منهم متكستو كم الدليل كيسا مع مناقشتها يضو لا مناقشون ايوه ووحو لقدم التقيو او وحلقة شوابي وبيان ما لها وما عليها وبيان إلا عدي ما لها مثلا رجع علماء المذاهب تاسي وحي حق ليهين ويكون قميهين وما عليها وحلقة قميهي أنت مرنا وعلقاوطة مرنا أضاوطة ساسوية ما لها وما عليها ثم نستخلص وحن نوجد بين من ذلك الحق الذي أوردناه حقي أما الشيء ونكسنا حقها وأن سأروني في القسم الأعلى قيب تكوري يعني نوجد بيناوي وقد أريد فيه وحلقة بين كل سأروني بعض المسائل مسائل قاركيد التي ليس عليها نص في السنة وأن حديث كل سأرورين إنما هي من المجتهد فيها وحيابا لقوا اجتهادي بكملها ولا تدخل في موضوع كتابنا هذا كتاب كان موضوع سنة مخصوص لكن واسكتف ليريس مرمرنا إرئيس كسو قلي على يا بابو ليه واي ولما كان ضبع الكتاب ماشي أنا وحب شيء يعني تدكى هذا الدولة هذا كوه سنو شاهد وحما اسكدع كره كتابك وحلي قيبت كرو علاقة أحيد ومتنق أحيد هي قيبت الدم شرح محادث ماشي السنة كيسي عدي وغريسي رياضة لقود دري وحيابا لقى هذا قيبته هو صح نمسو رجالين وحيابا نوقت كين يا شريبي هنا الله بضبع مطبعات جينه قيبت كوري كلي عن مطبعات دي بان جيني لو صورة شريبي باقور مطبعيني قيبت عند مدة مقدرية حتى مطبعات وتي طبنادوي حد قرنا يساعد شيخ انتو نورا انت سو شرين لمطبعيه او شيخنا مركات شوقي مطبعات هذا طبنادوي مد هذا marka madbacadaha wuxuu leeyahay markii horeysay matri kori ayaanu waxaynay way way aniga xataa waayada hore waxa arki jiray isagoo sharxiyadan badan lahayn marka tu horena waa la helaya qaybi hore waxa badan hadda lahayn way walamaa kana dabcu kitab kitaabka madbacadiisu markay ahaatay bishatray labadiis qayboodba qaybta kore iyo qaybta hoose mima lam yataysar lana alqiyam bihi mima lam yataysar lana wixii aan noo fududaan alqiyam bihi ina isu taagno li asbaab alqaahira أسبابنا قصبيسة ما دولته باكو حيي ما كتابك لفتيسا لا بقاي وحا لا بقاي إني ديدان داد مارت دادك مذاهبتي وحا سبوق إنو ككعه نوس الشيخ waa ka gaabsaday لأسباب قاهرة أرمنا خصبة يا شريبي إنا أنا لبضب اسكوحين فقد رأينا وحان أرقني أن نطبع إنا مطبعين الشطر الأول قيبته ومنه كتاب كمذا مستقلا عن الآخر قيبته دم أيان شرين وكم مستقله قيبته كوريكلي إنا مطبعينه إن شاء الله تعالى وسميت وحاكم مقعابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صفة أما قابك صلاة النبي من التكبير الله أكبر تلقى بلعبه إلى التسليم إلى سلام نقصية كأنك وابعدك وتراها صلاة أركعي إنها يقوهيوي سأدى ونسي وي ويا شيخ أسأل الله إلهي وحويدي السنة تعالى كرهاي اجعله إنه كيله كتاب كان خالصا لوجه الكريم وجهه الكريم كان بدء خالصة
aanan istususiya wax kale ula jeedin waan yanfaca bihi ilahay kitaabuka inuu ku anfaco ikhwaani lmu'miniin walaalahayga mu'miniinta ah inahu ilaahay samiicun allihii maqal badan weeye mujiibin ducada aqbala weeye saasuu sheikhu yidhi raximah ullah manhaj lkitaab halkan cashirkii saddexaad waxaan gelaynaa isla cashirkii labaad baan ku jiraaye ciwaanka saddexaad waa manhaj lkitaab kitaabka manhaj buu ku socdaa marka intii aynaan fuqahada hadalladoodii aynan gaarin hadal buu kasii bilaabanaya wuxuu ka hadli doonaa fuqahada dhibaata qabsatay meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa fuqahada dadka qaarkii oo muqalladiinta inay wax ka dhacsan yihiin qof kastoo afartii fuqahada ka mid hadda meesha noo sheegi doonaa mid walba wuxuu ka dardaarmay anigu warka fiqigaasaan ka tegey qowlka nebiga iyo qowlka fiqigayga hadday iskhilaafan ka nebiga aniga ii fiqiya wey ka nebiga qaata saasuu mid kasta dardaarmay taasuu ka hadli doonaa mid kasta kaasuu dardaarmay tiibaa marka dadka waxay diideen dadka taqliidka ku socday midii baa lagu kari waayey oo waxay rabaan inay shiikha kelmadii ka dhacday taqliidtaan oo aysan marnaba xadiiska nebiga qaadan oo waxay u arkayaan shiikhii oo la nusqaamiyey haddii qowlka shiikha laga tago ama fiqiga shiikha laga tago saasay moodayaan culimmadana waa arki doonaa say u hadlaan mid walba waa ka dardaarmay qowlka nebiga kayga hadday iskhilaafaan kayga banaanka u xoora ka nebiga raacawi منهج الكتاب ولما كان موضوع الكتاب كتابك موضوع مركو أهاضي إنما هو بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم نبي هديكس إن لا عديه في الصلاة هديكس أما طريق النبي كسر عنشر الصلاة إن لا عديه كان من البديهي وحا اسكم مقطب بديهي بديهي وحا وحا عاد كل رقنين أنا أتقيد فيه إن أنا كنت ضيان بمذهب معين مذاهب معين كأه ولا وذا يقان مالكي شافعي وحا من إن أنا كنت ضيان متقارن أنا وحق لنبوليه لسبب الذي مر ذكره sababta aan hore u soo maray darteed wainama uriidu fiihi waxaan soo aroorinayaa maa habata wixii ka sugnaaday canhu nabiga sal ly slam kamaa huwa madhab almuxadisiina muxadisiinta madhabkooda suu ahaa qadiiman wa xadiian waagii hore saxaabadii iyo dadkii ku soo dhowaa quruun mufadala iyo waayadan dambe intaba raggaa muxadisiinta madhabkooda inaan ku socdo waqad axsana wuu hagaajiyey man qaala qofka yidhi ahlulxadiidi hum ahlurasuuli wain لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا وايه أهل الحديث والشعر أهل الحديث ذاتك حديثك أهلك أوه وحديثك النبي كشقيا هم يجوا أهل الرسول رسولك أهل كسيوي وإن لم يصحبوا يجب الله صاحب نفسه والنبي نفس الدسية أنفاسه والنبي هذا الكيسي قالق أها يعني أنفاس تأطوح الله وضع حديثك النبي قالق أها أما واحد النبي نفس الشيء يصير لهم يصير أنفاسه صحبوا النبي xadiiskiisa bay la saaxiibeen wey iyagba nebiga nolol kula saaxiibeen laakiin anfaastiisi wixii afkiisa ka soo baxay ama ficlahaan u sameeyey ayay la saaxiibeen waxyaabihii qaaliga uu ka tegay bay la saaxiibeen wey saa daraaddeed waa dadka nebiga u jecel ama maaragtay wax walbaba xadiis maaragtay la wariyo saasoo kale raggii ka shaqayn jira xadiiskaasi khaatumada waxyaaba la yaab kale wey waxaad arkaysaa markii xadiiska iyagoo xataa qaarkood naftu garaacayso bay xadiiska isku daya inay wariyaan wey ya cajiib wax la yaab le wey qaar naftu garaacayso ayaa markii maaragtay laysugu yimaado bay xadiis warinayaan waad la yaabaysaa aad iyo aad baa ula yaabaysa khaatumada wanaagsan walidaalika sidaa darteed faina alkitaaba sayakuunu in sha allahu tacaala faina alkitaaba kitaabkan sifatu salaati nabiy sayakuunu wuxuu ahaan doonaa in sha allahu tacala ilahay hadduu doono ilaahay jaamican mid kulminaya lishataati ما تفرق وحي كلا تكتجي في بطون كتب الحديث لشتات وحي كلا يعسنا لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث كتب الحديث كنحض هذا أما جده هذا وحي كلا يعسنا والفقه يفقه وحي كلا يعسنا على اختلاف مذاهب تكلا تدون مما له علاقة بموضوعه وحي الموضوع علاقة له بينما لا يجمع ما فيه من الحق بينما ما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب iyadoo uusan baynamaa meelho laa yajmac uusan isu keenayn maa fiihi min alxaq waxaa ku sugan xaqa ayu kitaabin aw madhabin sida aan u soo ururinay oo aanan madhab u eegin xadiistii nabiga kale uga soo ururinay madhab kasta markii loo tago qayb baa ka dhiman masaa'il waxaa jira salaada ku saabsan oo shiikhii laga qaatay ama fuqahadii laga qaatay aan xadiisku markaa sugayn saas u socdaa weeye وسيكون العامل به وسيكون وحو أهان دونا العامل به قفك كو عمل فلا إن شاء الله إلهي هدو دونا ممن قد هداه الله دتك إلهي هنونيه إنو كمد أهادوي
lima اkhtalafuu fiihi min alxaqi biidnih lima اkhtalafuu fiihi waxay isku khilaafeen oo min alxaqi xaqa biidnih ilahay idinkiisa wallahu yahdi man yashaa ilaa siraadi mustaqiim ilaahay wuxuu ku hanuuniya qofku doono ji toosan marka wuxuu aad sheekhu u saxaynayaa ku camalfala kitaabkan buu leeyahay salaadii nebiga suuradeediiba buu leeyahay laakiin madhabkaygaa sidaasa oo madhabkii hadday xadiiska nebigu isqabtaan madhabkan qaadanaya xadiiska nebiga qaadan mayo taa ha yeelina buu leeyahay insha allahu tacaala habeen dambaan dhamaystiri doonaa wey wallahu subxaanahu wa tacaala calam